ولدت في السعودية. أنا إلهام أويس وحنا كل شيء سعودي وحنا كنا هولن نولل آدو اللي دتا وحنا جعلها هنا نيشجع قصة نولل شيء ده قصة آدو حنون بدن أو كل عدي ولاشن إلهام أويس. حياتي في خميس مشيط في السعودية. سعودي أيام كل شيء نولل آدو قروح بدن بأهيد أيضا كوبن نولل آدو قروح بدن أيهيد وحن بالله دوكسي هو سيد دحى وقت آدو قروح بدن بوها وحن حسوستا إنه أبونا كحنجر عمرض عني ولا عليه يكله مركز نسك عياري جرني maalmaha iyo bilaha iyo sanadooyinka say socdeenba waxaan xasuustaa markaan 12 jir ahaa anoo fadhiga ayaa waxa yimid walaalkay wuxuuna ii sheegay hooyo aabbaay la hadlaysa ayadoo oynaysa hooyo ayaan u orday waxaan ku yiri hooyo maxaa dhacay hooyo waxay igu tiri shaqadii ayaa laga ceyriyay aabe waxaana qasaba 3 maalmood gudahood inaan Soomaaliya ku laabano Soomaaliya maxaa dhacay hooyada waxay ugu tiri Soomaaliya waa gurigiina hooyo aabiin 20 sano inta ka shaqeeyay saas darteed xataa looma ixtiraamin Sacuudiga nama rabto Sacuudiga ayaanu ka cararnay waxaanu tagnay Yemen ayaan waxaanu ku noqonay qaxooti isla markaana waxaanu ka bilownay nolol aad u adag guri ilaa guri ayaanu guureynay aabahina wax shaqo helay ma jirto waxaan aad u bartay waxbarashadii waxaan dhameystay waxbarashadii jaamacadda waxaan bilownay ilaa 2005 inaan dib isu soo kabno aabahay ayaa xanuunsaday xanuun aad u daran waxaana qasab nagu noqotay in isbitaalka geeyna marka waxaanu aniga iyo hooyada iyo walaashay ayaa waxaanu qaadnay aabahan waxaanu geynay isbitaalka isla markaana waxaanu geynay qaybta degdega su'aasha ugu horeysayna weydiiyeen waxay dhaheen aaway aqoonsigiisii xaaladiisa aad ay u adagtaan ku helo ninka daaweeya kadibna aanu ka wada hadalnaa aqoonsiga waxaan ugu qasbanayd inaanu bixino lacag aad u badan waxaan tagay inaan lacag soo aruuriyo anoo soo socda oo isbitaal ku soo socda ayaa taleefanka soo dhacay walaashay ayaa la soo hadashay waxayna igu tiri Ilham aabbo waa dhintay Allahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qisaad xanuun badan بسبب ظروف arrimaha oo nagu adkaaday darteed ayaa waxaan u soo tahriibay Holland waxa igu yaabka badnaa arkay shurdada aadka iga naxisay markaas meel aan ku qasbanaado ma jirin waxaan dalbaday qaxootinimo ayaan dalbaday waxaan ma taqaanaa intaan sugayo sharcigana wax aan ka bartay ma jirto luqadda ana asbaray aniga kaliya ayaa dadaalay sidaan luqadda u barto في يوم من الأيام maalmaha kamid ah waxay soo dhacday waraaq هذه الرسالة waraaqdaas waxay ahayd waa waraaqdii mustaqbalkayga ahayd ma waxaan sawirtay in ay axlaamtaydii iyo riyooyinkaygii oo aan ku noolaado Holland oo aan qurux meel fiican degnaado macquul ma inay Holland noqoto guriga cusub فتحت الرسالة waxaan furay waraaqdii waaba argagaxay waxa la siiyay negative sharcigana waa la diiday waxaana la yiri wadanka waa inaad kaga baxdaa 48 saac gudahood السعودية رفضتني Sacuudigu way diiday وهاجرت إلى هولندا Holland ayaan u soo qaxay waana diiday xageena aad hadaa وبعد فترة muddo kadib حصلت على منظر الشرطة waxa way shudrada booliiska ayaan la qabsaday kama baqi jirin inaan meel iska dego الآن waxaan degay gurigan ayaan degay الإدارة وقريبا راح تيجي الشرطة meeshan waxa timaa booliiska ayaa yimaada wayna naga saaraan dhulkan isla markaana waxay noo saaraan banaanka hadda waxaan ku noolahay darbi jiif ayaan ahay banaanka ayaan ku noolahay Ilham waad u jeedaan ayadoo hor dayacan ayay waxay wareegaysaa mataqaanaa magaalada halkan waad u jeedaan dadkii guriga laga saarayo ee aan sharciga lahayn haddaba nolosha halkan taala maxay tahay waa nolol aad iyo aad u liidata ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaashin Ilham ha u sahlo muraadkeeda iyo sharcigeeda meel عن طريق مساعدات الجمعيات waxaanu ku noolnahay oo nacaawiya hay'adaha khayrka Hollandeyska naftirkooda ayaa cuntada noo keena iyo waxyaalaha muhiimka ah أدافع عن وجودي waxaan difaacayaa in aan aniga noloshayda u difaaco nolosha ayaan la hadlaa saxaafadda ayaan la hadlaa waxaan anu rajo ka qabo inuu qof uun qisadeeda maqlo waana gabar dadaashay sidaad u jeedaan ayadaana luqad isbartay waxay ka qayb galaa mataqaanaa mudaaharaadyaadka si aan u helno xuquuqdeena iyo wixii sharciyan u leeyahay laakiin wax natiijo kama soo baxdo لا يوجد لي مكان في هذا العالم adduunka boosku ma lihi kulli waa burinayaa waa la ciirsanayaa waxaan ku dayacanahay jidadka Amsterdam أنا في الشارع مختفية aniga jidka anoo taagan qof ii jeeda ma jiro qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay inaanan joogin camal oo kale maxaa yeelay aniga waraaq ma haysto ama sharci ma haysto intaas bisan baa dadkii lagu diiday macquul ma tahay inaan nolol fiican heli doono
معقول متى مالمها كمد إنه قف كسديد مقله معقول متى إن أنجوري هايستو وأنو الآن عادي أكون ولاده قصة إلهام أول سؤال على الوقصة آدي وحنون بدن إلهي بنقول هرتي ويجو هيسي إسلام مركنا وحيجو أبورتي مروجا يجو أبورتي وحين ولا على الدليل تهاي إن أدونك مع نقف والباء وحودا مدلكيس هو يجرين وحنو بإلهام ما أنت هدي جوج له الصومالية وحن أمسنا إنه الكدورين هيسان لهيد هذا بقول على القصة 10 لقاطو ولا شيء إنها لو جرمدو قفك واحترق أنا هترو هنا الإسكدايو ملا لوسع عررية loo soo tahriibayo loo soo baabaayo shalay baa ugu dambeysay 200 qof oo qaxooti ayaa ku dhimatay badda ilham ilaahi subhanahu wa ta'ala ha u sakhiro walaalkii naasir cadceedo in leh walaashin hiliyo hooba hala la garab istaago waxna loo qabto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh